maayarka magaalada Beledweyne Marwe Nadar Tabax Maalin oo si dardar leh ku wada ololaha isxilqaan ee ay wax ka qabanayso bilicda magaalada Beledweyne ayaa maanta xaafadda Howlwadaag gaar ahaan laanta Hilaac ka daafurtay dhismo lagu sameynayo waddo saddex xagal ah oo dhexmarta xaafadda Howlwadaag gaar ahaan laanta Hilaac. Kaarakooyin badan oo carro ah ayay dowladda hoose ku shubtay wadooyinkaasi oo marinkooda dadka iyo gaadiidka dhib badan ay ku qabaan xilli roobeedka iyo sidoo kale markii fatahaad ay timaado. Munaasabadda daafurka wadooyinka dhismaha lagu sameynayo waxaa maayarka Beledweyne kala qayb galay gudoomiyaha degmada Beledweyne iyo ku-xigeenadiisa, taliyaha qaybta booliska, ganacsato, dadka xaafadaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo maamulka ka mid ah. Gudoomiyaha xaafadda Howlwadaag, odayaasha dhaqanka xaafadda iyo ganacsatada gobolka ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo ay arkaan maayar u heelan horumarka iyo bilicda Beledweyne, iyagoo ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan maayar Nadar. waa wacdara noo dhiman oo weli hadda intii ka horeysay aanan soo gaarin. maamulka waa joogay, waa jiri jiray. allaha dhowro meelba la jooga, allaha ku ilaaliya. hase ahaatee laakiin saduqa magaalada oo inta soo baxa wax la taaban kara xaafadahan ka dhex qabanaa dhahaya waa wax noo dhiman. duqyow allaha ku dhureeya jiroo joogi hay. taas waa mahad ilaahay, waa kaaga mahad celinaynaa. waxqabadkaada qiimaha badan la taaban kara waa laga horeeyay duqoobihii hore ka horeyn jiray. waxyaalo kaleeto oo hadda aan ku xusi kara ani hadda ma dacaydaynayo oo ma cambaaro ma diraaya, laakiin wax la taaban kara adiga hore lama keenin. duqyow soo dhawow, waxaan kugu soo dhaweynaynaa waxqabadkii yaraa oo hadda bilowday oo xaafadaha afarta xaafadood oo aatiri waxa laga qabtaa aatiri ugu horeyntii meesha hadda aan joogno oo aniga hadda goobjoog ka ahay waa xaafadda Hilaac, gaar ahaan fallarka ii sheeg wada jirka oon joogno. waxqabadkaadii hor kalahay waa aragnay. ilaahay ha ku dhureeya. waxaan ka rajaynaynaa wax kale oo ka sii badan. maayarada cusub hadda nagu soo beertay oo maanta waxqabadka noo qabatay, waxaan ka rajaynaynaa sidaa wax noogu qabatay iyo si ka wanaagsan wax noogu qabato, dadka dhan ay ka wada sinto. hadda waxqabad noo bilowday, waxqabadkaas noo bilowday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay ku diido khayr Allah ka siiyo. anoo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga waxaan mataqaanaa garab taaganahay maayarada Nadar Tabax oo u tilaabsatay horumar inay soo celiso bilicda gobolkeeda, inuu mataqaan noqdo mid sida gobolada kale ka muuqato inay ka dhalaasho rabto insha Allah. waxaa dareemaysaan intii hore magacaaban tahay inaan mataqaanaa goobo badan looga hadlay waxqabadkeeda. insha Allah aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa. annaga ka ganacsi ahaan rugta ganacsigan insha Allah waxaan jecelnahay inaan kaalin mugle ka qaadan insha Allah. duqa magaalada ayadoo waxaan dhammaan 2 isbuuc magacaaban waxa la qabtay ayay qabatay. runtii waxaan tagay 8 bisha waxaan tagay suuqa dabageed loo yaqaan oo qudaarta xurub iyo biyo iyo wasaqa yaalay waa la haaqay, waa la nadaamiyay. afarta xaafadoodna waxay u qaybisay iska rogayaashaas hadda arkaysaan oo jaayiga iyo ciidaas oo maxaan ku raacarkaawada lagu daadinaya jididkii habaysay. alxamdulillah wali maamul waa soo mari jiray, laakiin duq magaalo oo xaafadaha dhex socdo oo maxaan ku qashanka ka xaabinaya oo sidaan u wanaajinaya waliina ma soo marin. aad aan ugu mahadnaqaynaa, waa u ducaynaynaa ilaahay hala jiro. islaan dabadeed waxa weeye aniga waxaan ahay gudoomiyaha Howlwadaag. maayeerada shaqada ay marka loo soo bedelay ay ka qabatay magaalada ama bari ha noqoto ama ruxsun noqotay aadan u soo dhaweynaynaa. waayo oo qofna soo booqdo oo xaafadda yimaado oo indheeyo oo wax uu qabto waa koow way inoo tahay. oo ku taageersanahay dadaalkaas oo sii kordha. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhuubo iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Korneyl Isaaq Cali Cabdulle ayaa dhankooda ballan qaaday in amniga goobaha howlaha kala gedisan ee shaqada ay ka wado maayarka ay sugi doonaan amnigooda, iyagoo sheegay in si dhow maayarada ay ula shaqeyn doonaan. waxaan u sheegaynaa insha Allah dadka iyaga naftikooda inay isxilqaamaan oo ay maamulka bisee maartay ay fiirsaneen insha Allah. waana soo dhaweynaynaa walaashay Nadar insha Allah. waxaan leenahay dada ka horeeyay, dadka ka horeeyay iyo islama shaqeyn jirin, laakiin waxaan insha Allah ku boorinaa inaan wada shaqeyno insha Allah biidnillaahi kariim. waxaan u mahad celinayaa maayarada cusub ama duqa magaalada ee cusub ee muddada maalmaha ah magacaaban. runtii maalmahaasna dhihi karno waa maalmo xasuus inoo leh, maxaa yeelay maalintii la soo magacaabay ilaa maanta aan joogno isbuuc kama badna. subax kasta waxaan u jarmaadnaa shaqo, waan kala shaqeynaa duqa magaalada iyo dowladda hoose inta waxaan kala shaqeynaa magaaladan kala shaqeynaa, amnigan kala shaqeynaa.
xaafadahan kala shaqeynaa buriisa la shaqeeyo annaga la wada shaqeyno subax kasta waxaan u dirmaadnaa shaqo waa shaqo nagu cusub waaye waa shaqo u baahan fudaysho u baahan waaye ugu dambeyn maayarka Beledweyne Marwo Nadar Tabax maalin oo hadashay ayaa ka dhawaajisay inaysan dhici doonin in gaadiid iyo dhar qurux badan ay ku xarakoodaan magaaladoodina ay ka harto magaalooyinka kale dhanka bilicda iyo horumarka bulshada Beledweyne ayaana ugu baaqday inay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada kor u qaadista bilicda iyo horumarka Beledweyne. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan hawshii isxilqaan ku jooga xaafadii labaad daraad waxaa heer gabagaba maray on dhamaanin laanta filter xaafada Bundaweyn maanta waxaan joogaa xaafadii labaad ee Howlwadaag laanteeda Hilaac ayaan maanta daah furay waxaan codsanaa war badan malihi waxaan codsanaa maanta cid kasto xaafad hadda ganaato rug ganacsi ha lahaato cid kasto oo dareynaysa bilicda magaaladan meel kasto oo joogto in ay u diyaar garoodo inaan wadankeena quruxsano inaan qurux badnaadno oo dhar qurux badan xirano oo aan baawar qurux badan wadano guryaheena iyo deegaankan ka nimidna oo fool xumaado runtii wax qurux badan ma aha quruxdu waa meesha ka dambayso sheyga rabtida xiran kartaa laakiin ma aha in gurigaagana uu hortiisa dac ay noqoto adigina dharka ugu qurux badan dahabka ugu qurux badan suudka ugu qurux badan aad wadatid waxaan aad u boorinayaa ama aan u codsanayaa labiskeena iyo guryaheena iyo deegaankeena inay isku ekaadaan waana mahadsantiin Maxamed Ibrahim Siyaad Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan hawshii isxilqaan ku jooga xaafadii labaad daraad waxaa heer gabagaba maray on dhamaanin laanta filter xaafada Bundaweyn maanta waxaan joogaa xaafadii labaad ee Howlwadaag laanteeda Hilaac ayaan maanta daah furay waxaan codsanaa war badan malihi waxaan codsanaa maanta cid kasto xaafad hadda ganaato rug ganacsi ha lahaato cid kasta oo dareynaysa bilicda magaaladan meel kasta oo joogto in ay u diyaar garoodo inaan wadankeena quruxsano inaan qurux badnaadno oo dhar qurux badan xirano oo aan baawar qurux badan wadano guryaheena iyo deegaankan ka nimidna oo fool xumaado runtii wax qurux badan ma aha quruxdu waa meesha ka dambayso sheyga rabtida xiran kartaa laakiin ma aha in gurigaagana uu hortiisa dac ay noqoto adigina dharka ugu qurux badan dahabka ugu qurux badan suudka ugu qurux badan aad wadatid waxaan aad u boorinayaa ama aan u codsanayaa labiskeena iyo guryaheena iyo deegaankeena inay isku ekaadaan waana mahadsantiin